iyaday gabagaba tahay ololaha doorashada madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore waxa isugu soo baxay fagaarayaasha iyo xafiisyada kala duwan ee ay ku leeyihiin degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye kuwaasoo ku leebisnaa calanka labada midab ee muuqa dheer astaanta oo xisbiga kulmiye iyo boodhar iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan musharaxa madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa xisbiga kulmiye oo ka ugu cududa iyo taageerada badan degmada Garadag ayaa taageerayaashiisa oo lug iyo gaadiid bali waxay socod dheer ku soo mareen fagaarayaasha degmada kuwaas xarfada ay u qabaan xisbiga ka baxay magaalada tagayna bogcada cidla ah halkaas oo ay ku soo bandhigayeen cududooda taageer waxana si weyn uga dhex muuqday taageerayaasha xisbiga saraakiil sare oo ka tirsan xukuumadda iyo xisbigaba dabaaldeg dheer oo saacada qaatay kadib waxay isugu soo biyo shubteen fagaaraha qayriyada geedka nabadda halkaas ay mas'uuliyiintu kala hadlayeen bulshada taageerta xisbiga kulmiye waxaana ugu horeyntii munaasabada furay gudoomiyaha xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ee degmada Garadag Sahal Maxamed Ismaaciil maayirka degmada iyo madax tiro badan oo leh heer degmo iyo heer gobolba waxaana hadaladoodii kamid ahaa maanta 9 baynu marayna 4 cishaa ka hadhay waxaan dhalinyarada ka waaninayaa had iyo jeeraale ninku waxaanu hadhow kugu caayi doono oo uu kugu faami doono inuu hadeer kugu riixo codkaaga iga iibi kaarkaaga iibsanaya in dhalinyarada sidaa idin la hoos gasho hadhow waxay noqonaysaa ninka sidaa ku yeela aad u yeeshaa ama codkaaga ka iibisa ama kaarkaaga ka iibisa isagu kugu faamaya hadhow sharafu meelida wuxuu oranayaa nimaa iibsaday baa tahay waxa miyaynu yeelaynaa hadal siyaada waxa uu baaroojiyay ma harin hadal siyaada maanta hadalkan suuqayna maanta waxa weeye waa inaynu kulmiyo u codayno iyo kulmiye habuuleysto ugu soo baxaan muddo iyo mar kale ay ugu soo baxaan xisbiga kulmiye ee u muujiyeen taageerada xisbiga iyo garooba dadka inoo imanaya xisbiga kulmiye ka tirsan ee degmadana ee kaadadkiisita waa inaynu guryaha uga kacnaa maanta waxa farxad ii ah aniga oo maanta waxa soo dad arkaya oo maanta aan arkay inay Garadag wada kulmiye tahay 100% ayaan u sheegayaa inay tahay kulmiye ana kule raaka oo kamid yahay ranka adeerka wahay ayaa la waa beegsan yihiin anigu waxaan idhi waryaal xogaada ka carooday waa soo noqonayaan loo baqan maayo kuwaas inaga daayay haddii ay maanta cadeeyaan aad baan ugu mahadnaqaynaa waana soo dhawaynaynaa waanuna sir ciidkeenna ugu diraynaa wadani fashilu dhinaca kale intay munaasabadaasi socotay ayana waxa hadalka qaatay xubno isugu jira qurba joog siyaasiyiin da'yar iyo aqoon-yahano miisaan culus ku lahaa xisbiga mucaaradka ee wadani haddana u soo diga rogtay xisbiga kulmiye waxayna dhaheen xisbiga iska casiyayaan halkan Garadag waxba umayaan xisbiga wadani waxa guusha iska leh oo ay u codayn doonaa xisbiga kulmiye xisbiga xaakimka kulmiye wax la yini nibata cabkiteeda kaamal waxa weeye ninka uu codaynayna waa mujaahid Muuse Biixi Cabdi wadani sababa iskaga casirayna in badan ma saxaafada ka sheegay oo waxa weeye kaambeynkii gobolka Sanaag ayaa waxa la wax ka talinayo odayaal Goostambeeda oo ceerkaaba joogo xisi ka hogaaminayo isbahaysigii ayaa ku haray waxaan leeyahay harka maransiide kale waxa looga heesaa harka maransiide awada kama tegin xabaarno dheer war waxa weeye kaararkii biyada ka urursan doorashada madaxweynaha waa muhiim tii golaha deegaanka waa muhiim haddii kale ka urursado golaha deegaanka iyo baarlamaanka maxaa ku codaynaysan deegaanka u balan qaadnay waanu ka doonnay maaha marka la guulaysto kaliya laakiin inta kaambeynka lagu jiro dhexdiisa kaambeynka waxbaa lagu qabtaa wixii lagu qaban lahaa ee furaha u ahaa waxqabadka wadani ee aanu ka doonaynay ee aanu ku matalaynay deegaamadayada waanu ka weynay gabagabadina waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Carab Cabdi Cali wasiir dawlihii hore ee wasaaradda duulista iyo hawada iyo gaadiidka cirka Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye afayeenka xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye Xasan Maxamed Cali Gaafaadhi
وضعنا عليوي أمو قصائنا قول كلا تكتير المدون بانورا لما كلمات بانورا يا وحوية ما أنت عروضا بيسا محوها حفلتي هي كامبين كي يسوع صباح يدي حسبك كلية وينور دماري لقى بلاد الساعة إنه هالك كتره وحلو ديار جروب يا سيدي الله أورون لهذا كي يا ديار جروب سقف وليلا شخص كسقف كبرنا اليوم قوم كستا ميل كستا أيها لو ديار جروب سي سطح يطول كبيشة ما أنت إسنين تقف وليلا وجود ديار جروب هالك تشوفي وليلا ديجان كتك ما ذكر هالك اللي تشوفنا مجالدا جرادك يا جرادك بي أنت كلا وانت وحوي واحد نجف هيدا ترى يا فرصتك دود لا ما هنشفتي قرن مدين عرفت واحد سنة وحيين الماء المعكر ما قفت أسكك اللي بيصير يبيع دوما قرن مدين نكما يمن عيار إن الله جمع برين وإذا ما نسين ما أنت واحد داعي سطورشوا صعد كي مارش كي عيار كفتشري وحدك ذي كاره بالمرة هذه الماذا أنا غيرك ما أنت صور يجي كيمي حسبك وطني أقرتي إن أنا ما كمل لشوما أنا هاي صار راعي عدودة اسبدلك سمين كرتا صار راعي intaasi kadibna waxa dabaalda kan la midii uu ka dhacay dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Garadag oo ay ka dabaaldegayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag